السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوة الآن مeel kasta aad joogtaa waxa idin leena ku soo dhawaada qaybta labaad ee barnaamijka ugu hadlaynay hogaamiyaasha SYL qodobkan waxaan ku soo qaadanaa hogaamiyaha labaad SYL ninka lagu magacaabo Maxamed Xirsi Nuur CD barnaamijka sida hore ugu bartay mar walba aan soo jeediyo anigoo ah Xuseen Maxamed Xuseen Yare waxa idin leeyahay daawasho wacan fadlan barnaamijka hadaad ku cusub tahay subscribe saar ambalka fur taad mar walba waxaad aan soo dhigno aad aragto xanaak xasidana share si share garay like saar comment ka CD si asxaabtaadu si arkaan aad baad ugu mahadsantahay hadaan ku bilaawno Maxamed Xirsi Nuur CD waxa uu ku dhashay deegaanka Mareeg oo ka tirsan degmada Eeldheer gobolka Galgaduud waxa uu dhashay 1915 waxa uu ku soo barbaaray gurigii aabihiis iyo hooyadii isagoo 2 jir ah ay qoyskiisa u soo guureen magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxayna ka degan degmada Warrigle ee gobolka Banaadir markaas kadib ayuu ka bilaabay barashada Qur'aanka Kariimka ayuu markii quraanka barto u tagay masjid magaalada Muqdisho ku yaalo si uu barto sharciga iyo mawaadiida islaamka sanadii 1930 ayuu ku biiray dugsiga Talyaaniga lahaa galinka hore maqaayadiisa oo gadan jiray halka galinka dambe oo iskuulka Talyaaniga dhigan jiray oo uu si wanaagsan u bartay luqadda Talyaaniga ayuu bilaabay howlo ganacsi isaga u dhaxeeyay magaalada Muqdisho iyo Adan waxaana wakiil Adan uga ahaa qaar kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqna magaalada Muqdisho intaasi kadib waxa uu wareegay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya muddo 3 sano ah ayuu wakiil uga ahaa ganacsatada Muqdisho Maxamed Xirsi Nuur waxa uu ahaa mid aan ku ah wadaniyada iyo wanaagga jecel sanadii 1941 oo uu Ingiriisku la wareegay dhulkii Talyaanigu ka talinayay Maxamed Xirsi Nuur CD waxa uu boqolay dhanka Kenya kadibna wuxuu ku soo laabtay magaalada Muqdisho ganacsigiisa halkaas ku sii watay waxa si markastaba ku fikri jiray mawaadiid jaamiciyad ku kulma culimada iyo undergraduate si looga qayb qaato horumarinta bulshada Soomaaliyeed Maxamed Xirsi wuxuu ahaa xubintii labaad ee aas-aasayaasha SYL isagoo ahaa xubin firfircoon oo dandiisa gaarka ah uu ka horumarin jiray danta guud sanadii 1954 ayaa loo magacaabay madaxa xafiiseedka iyo tirkoobka jinsiyadeed xasay yeeshay muddo kadib ayuu iska asilay hubin shaqo ka bilaabay bandhiga amaha bixinta sanad kadib ayuu isna ka tagay asiga dhaqdhaqaaq ganacsi dib u bilaabay dhageystayaasha waxaan ka raaligelinaynaa Maxamed Xirsi Nuur CD taariikh dhimashadiisa aan haynin mise waqtiga uu geeriyooday aan haynin waan ka raaligelinaynaa Xuseen Maxamed Xuseen Yare kulanka dhalinyarada Muqdisho